wasiirka waxbarashada wasaaradda waxbarashada dhammaan shaqaalaha wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradaha kale ee dalka idil waxaan ugu hambalyeeynaa horta marka hore inay soo qabteen shaqo aad weyn in maanta loo fadhiyo imtixaankii dugsiyada sare oo ay galayaan in ka badan 3 sida uu wasiirku sheegay iyo sidoo kale gobolada Puntland inay intaas ay ka galayaan in 4,000 oo kale ku dhawaad ama ka badan waa maanta runtii maalin ahmiyad weyn leh in 27,000 oo arday laga soo bilaabo dawlad goboleedka Puntland ilaa inta dawlad goboleedka Jubbaland u dhaxaysa in 27,000 oo arday Soomaaliyeed ay galayaan imtixaanka dugsiga sare waa tilmaan muujinaysa in dalkeenu uu leeyahay rajo wanaagsan in arday Soomaaliyeed oo insha Allah kulligood ama intooda badan ay mustaqbalka jaamacada gali doonaan xirfado kala duwan baran doonaan noqon doonaan dhalinyaradii mustaqbalka dalkan hogaami lahayd inay u fadhiyaan imtixaanka aad ayaan ugu faraxsanahay waxbarashadu waa sida kaliya oo aan uga bixi karno dhibaatada dalkan soo ku soo habsatay dhalinyarada oo ah 70% shacabka Soomaaliyeed macnaheedu waxay tahay haddii 70% shacabka Soomaaliyeed ay dhalinyaro tahay wadankani fursad badan ayuu leeyahay dadka Soomaaliyeed iyo madaxda marka waxa muhiim ah inaan xooggeena ugu badan iyo maskaxdeena iyo muruqeena aan gelino sidii dhalinyarada aan siin lahayn fursad ay wax ku bartaan uguna abuuri lahayn shaqooyin kala duwan oo ay dalkooda ku horumariyaan iyagana maanta waxaan Ilaahay uga baryaynaa in Ilaahay imtixaanku u fududeeyo mustaqbalkooda Ilaahay u iftiimiyo ay noqdaan kuwii dalkooda dhibaatada ka saara iyagana waxaan u sheegayaa in ay ogaadaan in mas'uuliyad weyn ay ka saaran tahay dalkooda siday dhibaatada uga saari lahaayeen waa inay ogaadaan dhalinyaro iyaga la da'ah inay dalkan soo xoreeyeen keeneenna meel aad u wanaagsan maantana iyaga fursad haysta wasiirka waxbarashada iyo wasaaradda waxaan ku bogaadinayaa in la kordhiyo ama la hagaajiyo tayada waxbarashada in ardayda loo abuuro fursado ay wax ku bartaan dadka Soomaaliyeed oo dhanna waxaan ku boorinayaa in wiil iyo gabarba caruurteena aan kula dadaalno sidii ay wax u baran lahaayeen waa mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaah